عدني مهنني سنتك من صومر لما صحى إلهه kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ilkiima meel kastoo joogtaan waxaanu idin leenahay ciid mubaarak oo kullu caam oo antu bil khayr kuna soo dhawaada barnaamijkii salaamaha oo aanu toddobaadkan idinka soo diyaarinay sidii looga ciiday magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer waxaanu ka cudur daaranaa hadii inta badan bulshada aanu ku soo wada gabayn kari weyno ama aanu dadkii aanu salaamaha ka wada qaadnay aanu ku soo wada qaadan kari weyno barnaamijka salaamaha aad baan uga cudur daaranaa waqtiga oo nagu yar daraadeed balayno eegna qaar ka mid ah dadweynaha reer Burco oo ay weheliyeen waliba mas'uuliyiin ka socotay dawladda Soomaaliland oo hambalyo u diraya dhammaan ummadda muslimiinta ee ku kala nool daafaha dunida عيد مبارك كل عام وانتم طيبين ان شاء الله همبليده waxaan u dirayaa dhammaan caruurtayda ugu horeysiinaya xaasaskaygi waxaan ku xigsiinayaa asxaabtayda meel kasta ay joogaan cid kasta oo la saaxiiba waxaan ku xigsiinayaa xukuumaddan ka tirsan madaxweynuhu ugu horeeyo labada gole maamulka kala duwan ee qaranku leeyahay guddiga cadaaladda iyo dhammaanba reer Burco iyo bulshada reer Soomaaliland adaa iga horeysanaya iyo dhammaan bulshada islaamka inta wanaagga jecel assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa jaamac maxamed salaamaan jaamac yare halka waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka dhammaan meel kasta ay joogaan mar labaad waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland mar saddexaad waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ku nool gobolka Togdheer waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay maxamed yuusuf xaaji dhawr waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay cabdinaasir maxamuud firdhiye oo jooga Kuwait dhammaan wixii asxaabe magacayga muuqay garay waan salaamayaa salaamu ala rasuulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kullu caam wa antum bil khayr ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta jooga dabadiyo gudaba waxaan gaar ahaan si salaamayaa dadweynaha reer Burco waan maanta kula tukadnay ciid al-Adha garoonka stadiumka Alamsey ee magaalada Burco ayaan gaar ahaan si salaamayaa maanta waa ciidii ciid al-Adha dhammaan ummadda reer Soomaaliland dabadiyo gudaba meel kasta ay joogaan iyo dhammaan dadka muslimiinta waxaan ku salaamayaa ku ambaliyeenayaa ciid al-Adha waxaan leeyahay ciideeda ilaahay haynagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo wanaag iyo barwaaqiya bashbash si gaar ah waxaan u salaamayaa qoyskaygii iyo reerkaygii caruurtaydii dhammaan oo kala jooga Canada UK Denmark iyo Somaliland waxaan leeyahay hambaliyada ciida iga gudooma waxaan idinku ducaynayaa inaad sanadkiisa barwaaqo iyo caafimaad qab iyo bashbash ku waartaan magacaygu waa Cabdiraxmaan Rigaax halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogto gaar ahaan shacabkayga asxaabtayda familygayga gaar ahaan halkan waxaan ka salaamayaa Naasir Maxamuud Firdhiye oo jooga Kuwait waxaan leeyahay saaxiib ilaahay ciideeda kugu gaarsiiyo bashbash barwaaqo waxaan kaloo salaamayaa Maxamuud Yuusuf Xaaji Dhogor oo isagoo jooga Ingiriiska magacaygu oo Cabdibaasid Aadan Cabdi waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo marwadiisa golayaasha qaranka waxaan salaamayaa shacweynaha gobolka Togdheer iyo Soomaaliland guud ahaan waxaan salaamayaa hooyada iyo aabahay waxaan salaamayaa qof kasta oo muuqayga magacayga yaalla waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi alf khayr ciid wanaagsan waxaan anagoo joognaa garoonkii weynaa Burco ee lagu tukanayay ciida aanu salaamayna dadweynaha muslimiinta meel kasta ay joogaan caalamka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaanu leenahay ciid mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum ilaahay idinka aqbalo ciida iyo amalka wanaagsan ee saalixa soo sameeyeen sidaasaanu leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bulshada Soomaaliland bulshada reer Togdheer dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay ciid mubaarak si gaar ah waxaan u tahniyadeynayaa xaasaskayga awlaadayda hooyaday walaalahay oo dhammaan ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba bismillaahi raxmaani raxiim waxaan dhammaanba salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan si gaar ah salaan uga dirayaa dhammaan familygayga asxaabtayda meel kasta kala joogaan dunida waxaan leeyahay ciid mubaarak daawadayaal wali inagoo ku guda jirna barnaamijkeena salaamaha waxaan la kulanay qaar ka mid ah caruurta magaalada Burco adeer magacaaga ii sheeg Ahmed halkan yaad ka salaamaysaa
hooyada iyo aabbahay hooyada magaceed istaahil aabbahana faysal yaa kale halkan aad ka salaamaysaa ayada iyo abtigay haya walaashay haya carruurtii kale malcamada wada dhigan jirteen qaar ma salaamaysaa haye kuma ka mid ah yaa carruurtii kale saaxiibka ahaydeen ama walaalaha ahaydeen yaa salaamaysaa walaalahay haye magacyadooda xamde iyo maxamed haye maxaad odhanaysaa ciid mubaarak anigoo ah maamulka hoteelka golis restaurant and hotel burco waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaanba kulli caam wa antum bikhayr kulli caam wa antum bikhayr marka labaad inta af Soomaaliga ku hadasha dhammaan ummadda reer Somaliland shicib iyo dawladba waxaan leeyahay ciid wanaagsan halkan waxaan ciid mubaarak kulli caam antum bikhayr waxaan halkan salaan islaamiga u soo jeedinayaa dhammaan dadweynaha reer Somaliland gudiga dibadda meel kasta ay joogaan waan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida ciid farxad leh ku ciida ciid barakeysan ku ciida waxaan kaloo aan duco u jeedinayaa xujaajta barakeysan ee marasa baytullaahi xaramkii ee maanta gudatay waajibaadkoodii ballaarnaa idinkana waxaan leeyahay noo soo duceeya oo dalka u soo duceeya si ilaahay maanta idinka aqbalo idinka maanta kafan xiran oo xiraamkii maraya maanta waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin uga diriyay dhammaan ummadaha islaamka waxaan leenahay ciid wanaagsan waxaan ku salaamayaa dhammaan ummadaha islaamka salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan u soo jeedinayaa dhammaan ummadda islaamka inay iswada saamaxdo maalintaa barakaysan awgeed reer burcano waxaan leeyahay saamaxnaakum aynu soo dhoweynay ciidda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala waxaan halkan salaan hambalyo uga dirayaa dhammaan islaamka dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan si gaar ah u hambaleynayaa shacabka reer Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Silaayo iyo marwadiisa madaxweynaha iyo marwadiisa saddexda gole waxaan si gaar ah u hadaba salaan ugu dirayaa xaaskayga iyo carruurtayda oo jooga magaalada Birmingham dalka UK intaasi daawadayaal waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii salaamaha oo aanu toddobaadkan idinka soo gudbinaynay magaalada Burco tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa waa Bashiir Ibrahim oo idinku dhaafaya nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.